munaasabadani oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool tuulada Xaydiintu oo ka tirsan degmada Filto ee gobolka Liban ayaa waxa sidoo kale kala soo qayb galay mas'uuliyiinta wakaalada dakhliga degmada Filto oo ay ku wehlinayeen qaar kamid ah mas'uuliyiinta heer deegaan oo howlo shaqo dhawaanahanba ugu joogay gobolka Liban. Ujeedada munaasabadani ayaa waxay ahayd mid lagu dhiirigelinayay isla mar ahaantaana lagu abaalmarinayay bulshada tuulada Xaydiintu kadib markii ay soo xareeyeen dakhligii sanadani 2007 loo qorsheeyay in ay tuulada soo saarto sida uu cadeeyay marayaha wakaalada dakhliga degmada Filto mudane Idris Farax Xuseen. qabalahan Xaydiintu waxaan koobtan idin ku nimidnay maadaama yahay qabalayadii qorshe dakhliga 3 bilyan kala qaatay ka qorshaan wakaalada dakhliga degmada Filto qorshahaasi qabalii koobaad ee rubci koobaad ku soo dhameystiray maadaama dhaarashanka xukuumaddu ahaa rubci koobaad iyo rubci labaad in lagu soo dhameystiro dhamaan qorshe dakhliga ayaa waxaan qabalahan u qaadanay saambalahan maadaama waxa qabalahan qabala ku soo dhameystir qorshii la siiyay rubci koobaad ee sanadkaba waxaan koobtan aan abaalmarin inaan ku siinaa rabnaa qabalahan Xaydiintu oo ahaa qabale mataqaanaa si ka go'naansha dakhligiisa soo xareeyay maraya ku-xigeenka wakaalada dakhliga ee dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdicasiis Maxamed Cumar oo munaasabadani lagu dhiirigelinayay isla mar ahaantaana lagu abaalmarinayay bulshada Xaydiintu oo kala soo qayb galay kulankani ayaa isaguna dhankiisa waxa uu cadeeyay in uu aad ugu faraxsan yahay kuna amaanayo bulshada Xaydiintu sida ka go'naanshaha leh ay uga qayb qaadanayaan horumarka deegaanka. run ahaantii waxa anaga farxad noo ah anagoo mas'uuliyiin ka socota xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya inaan qabalahan ka soo qayb galno maanta dhiirigelintiisa iyo munaasabadda lagu guddoonsiinayo abaalmarinta idinkoo ku mutaystay ka qayb qaadashada dhinaca horumarka ka socda deegaanka guud ahaan idinkoo ku mutaystay dhamaystirka aad dhamaystirteen waajibaadkii idin saarnaa ee xagga dakhliga idinka saarnaa ee sanadkan haday tahay xagga beeraha ama xoolaha ay tahay aanu idinka mahad celinayna oo ku hadlayna magaca wakaalada dakhliga iyo magaca xukuumadda sidaa daraadeed ma aha inaad ka qayb qaadateen degmada Filto oo kaliya horumarkeedii waxaad ka qayb qaadateen oo buuxiseen booskii aad ku lahaydeen guud ahaan horumarka deegaanka. dhinacooda bulshadii ka soo qayb gashay munaasabadani lagu abaalmarinayay laguna dhiirigelinay bulshada Xaydiintu ayaa waxay cadeeyeen inay mar walba u taagan yihiin sidii ay uga qayb qaadan lahayn horumarka qaybihiisa kala duwan una bixin lahaayeen waajibaadka dastuuriga ah. ugu dambeyntii marayaha wakaalada dakhliga degmada Filto iyo maraya ku-xigeenka wakaalada dakhliga ee dawladda deegaanka Soomaalida ayaa waxa ay si wada jir abaalmarinta ugu wareejiyeen bulshada tuulada Xaydiintu. Maxamed Xasan Xaashi, telefishinka caalamiga ESTV, tuulada Xaydiintu oo ka tirsan degmada Filto.